maxaa dawladda uga qayb gal wadaadada maxay kaydinku ahlu taqwaysan hadii madaxweyne laga dhigo wax isbedeli maayaan way dawladnimadu waa ummad nin maaha way dawladnimada Soomaaliya way soo yimaadaan maxay qaadaan Soomaaliya toosoo dhaweetana way ooyaan shirarkooda wax sareysa wallahi waa kan Ilaahay soo hadeeyay abaar markay ooyaan bay istooranayaan oo qolo fanaaniin gabaydo oo heesa la tiriyo calan la huwado oo ay kala sameeyay ayaa dawlad la doortaa dawladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyahay ama madaxweynaha heli ama ra'iisul wasaaraha heli ama kanbaad heli qolo ma soo baxaysa qolo markay soo baxdo inta dambe waxay dhahan waryaade nimankii reer hebel baa meesha qabsadeen yay inagu dawladoobin hadaba caga haya afartiisa sano caguun baa la hayaa in reer hebel baa laga ilaalinayaa magaca iyo maamulka iyo maamuuska afar sano markaynu halkii u taaganahay ayuun baa haddana heesihii dib loo qaadaa Soomaaliya toos waa kii shirkii 20aad bay noor muumad 20 goor shirtaad aragtay waan dawladdu u dhalanaynin كيف يمكن idan ma aha masaladu miyayna shirayn ma aha miyayna dawlad sameeyeen ma aha waxa masaladu waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahanay waxaynu u baahanay dhaqan bedel waa layna dhaqan bedelay ummad suldaankeedu qayelayo madaxweynaheedu qayelayo maamuuskeedu qayelayo wada muqaddara ummad qof waliba wuxuu soo gaaro oo xadayo ummad qof waliba wax kasta uu qaadanayo inteeda badani ma jirto waxaan tiiriyadana dawladda hal qaqayga wax lagu oranay maxaa dawladda uga qayb gal wadaadada maxay kaydinku ahlu taqwaysan hadii madaxweyne laga dhigo wax isbedeli maayaan way dawladnimadu waa ummad nin maaha qof iyo laba iyo saddex iyo ka ugu daacadsan hadii la geeyo huwa intii kala caga haysa muxuu sameeynaya reer hebelun buu noqonayaa sumadaas u yeelanaya markuu meesha tagay reer hebeladii kalena waxay leeyna caga hayday kugu dawladoobini